waxaa halkan dusha oga tuuraya ninka la yiraahdo iidla yare ee ka shidan tahay iyo ninka feeraha weyle ee ag taagnaa ee bah aada ku haayeen oo gabdhaha caynaya kulaha way niikinaysay nigiskii iyo gardiya ka dhididay fashuuqay ka tiri barraqay ka tiri aflagaad ayaa kaa deganaya ma garat taadii adiga aad qabtay niyo waxaad leedahay maxaan meelaa u weerweera maxaa la degi lahaa maxaa degtaa nafsiyaa ku haystee nafsi ayaa ku haystay idlow gabadhii aawo aad arsababo 6 cunug aad oga soo tagtay xagee ku dambeysay arsababo weliba hayaa araad ee deganeed qabalayda agteeda dahabshiil gadaashiisa ayaa deganeedeen ma garat markaasaa gabar zahre la dhaho zahre la yiraahdo ee hadda holan jirto ayaa kula soo biibtaan ku dhaw halkan kula soo gashay waadna guursatay ayada laftirkeeda oo xaggaad ku guursatay waa ku meher xaday halkaanay kula soo carartay ayadaa Kenya markeeda hor ka tagtay ayada halkan ku soo gelisay ma garat saasay tahay uur ayay ku qaaday wiil ayay ku dhashay waad ku inkirtay hatay gabadha shaaha meelaha ay wareejinaysay ee ku gadaysay masaakiinta ma garatay marka hablaha Soomaaliyeed ayaad nafsi ka gashay waxaad leedahay maxaa aniga aan ma aragtay xanuunka Allah keen la xanuunsana maxay ka igu dhacday iyo buro maxay igu soo baxdaad leedahay walaalow iska daa dumarka aad caayaysid iyo kuwa weliba aad ku inkiraysid awlaadooda ya war aawa gabadhi ku deganeed muxuu ahaayay arsababa xaafada hayaraad ee dahabshiil gadaasheed ku deganeed aawa 6 cunug ay ku dhashay gabadheer qaranjaa qurux badan ay ahayd saadigaas ay ku soo raacday ilmo ka dhashay dhac waa u soo geysay gabar kale iyo isla soo geysay ayada la tirkeedii aad ku sii inkirtay ilmihi ma garat walaad xalaal soo taagan oo la inkiray iidla laga haya ilmahaagi ishooda lay ku hayso ilmahaaga u noqo meelahan haro ordin hadhiin maxay waxa iigu dhaceen dhibaatada maxay iigu dhacday ayaad maalin walba la taagan tahay ma garatay hodana ma gaartid Hodar Cabdiraxmaan ma gaartid way ka heesa fiican tahay heesa islaamida la soo xadana ma qaado ma aragtay dad ida aflagaadeynaysan lama arko waxba ninkii waxba ana afkayga hadda ma karee waa soo daawo kartiin walaalayaal iille soo arka ma garatay marka iidla waxaan u sheekan kale oo dhaqanka hab iigu daran ba'da ku haaya sagana aanan celinayno isdhaami war iidla waxaan ku dhahay wallahi nafsiya ku haysto hore ka soo duceysay ilmahaagi aad ka soo tagtay 2002 alifkiya ka soo tagtay ma garat iilabanki inay tahan jeclahay ka soo tagtay oolaadaadi ilaa aftinow aada u laabanin anaga darisa ahayn ma garat anaga gabadha iyo adiga hadda ima xasuusanay sidoo naagta ama noonada noqotay dhowr sano way ka soo wareegatay ma bi xasuusan kartaa dad igu rimaadide laakiin waxa ku sheegaya ina oolaadaadi ilmahaagi aad u laabatid ee gabadha ku ooynayso ku dheeysay ilo ku aaw dib kaysa u soo gashay dibay dambur Itoobiya waatana ka caad habaara qabtaay habaara kugu dhac wallahi naagtaadi ilmahaagi ayaad ka soo tagtad ka soo ma aragtay aniga ina ku aqoona emails adi ayaan la qabalayda heesaha ka tumi jirteen heesa la soo xaday aroosyada ka qaadi jirteen ma garatay guri naga soo horjeeda sidoo kale heesa ma codadkiina ka joogi jirna ka seexan weyn jirna ma garatay marka waxa ku sheegaya dadka aad aflagaadeynaysid iyo dumarka aad ma aragtay aad sharaftooda ku ciyaaraysid aad bawaaninkisa waad heestaa waad dhex boodaa cid wax ka sheegta ma lahan ani iilla waxaan dhihi jiray waa iska qalbi xabxab waa iska ma aragtay calul ku qaad ma yaqaano aan dhihi jiray ma garatay laakiin marka arkay adigoo gabdhii caynaayo aniga gabar ahay ma garatay dumar in la caayana waa ka soo horjeeda ma garatay marka qof xun ayaad noqotay runtii ana waxaan dhihi jiray waa iska miskiin waa iska qalbi xabxab oo iska baqbaqlaynaya waa sidan waa kan ma garatay ayaa aniga iska dhaadhici jiray marka qaarna waxaan soo xasuusan jiray gabadhii aad qabtay ee aad ka soo tagtay ayaa mararka qaarkood wallahi ku soo dhacdo runtii inaan saas dhan aan u xuntahay maalan moodi jiray iidlow inaa xiriirisid ama waxaan ku moodi jiray aad maarta aad ka warqabtid ayaan u haystay wili xitaa gabadha maada furin hataa furi leed xitaa wax dhan oo aaleed adoo qabaa furdu waa ka soo dhaqaajisay ma garat waa hadee ka soo dhaqaajisay Zahra inta ku soo gelisay Kenya oo wadanka Kenya u dhalatay ayaa ku keentay bal ayadii baa cunug ku sii inkirtay adoo guursaday ayada noo imaan jirtay dhigirtay naagtiisu ka baqaaya naagtiisu ka oo ma aragtay aniga aabeeya igu meheriyay holana u socotay gabadhaas holana meesan aadin qof xaamila oo ilmo yar lagu qaxeynay qof xaamila gaalka ma yeelay soo maaha dhac
waxaa lasoo siiyey abiila lasoo siiyey meesa sugin xitaa abiil kala soo xariistaa lagu yiri way soo carartay ninkaana naq intuu dhahay waxay la soo gashay Kenya bal iskaba daayay ayadii aaba ilmihii lagu inkirabo yaa ayadii baaba ilmihii lagu inkirabo oo la yirnaayaa kuma aqaano والله waa la ooyay be ilaaha caay waan hee la qaraxmay Zahra marka arkana maxaa kugu dhacay ayada ku gadaysa ee maaragta bin cali agtiisa agaarkiisa eedka shaaha maxaa dhacay cunugi adaa laga jixado ku eka ma garat adaa guur xalaala guursaday ayaad gabadha ku inkiraysa abee bay ugu daray lahayd anaa jecel asaga wuu jecel yahay ma garat gurigeena xitaa imaan jirto waxa xasuusataa ma xasuusatid sanado badan madaxiya wuxuu ka noqdan ku dhafuntu ka noqdo waxa xasuus yeelanaysaa islaamka ilaahay ah ilmaha ku inkiraysid boqolaal cunuga Nairobi ku inkirtee yaa nafsigaas ku haysto markii cafide maraacaysid iyo mara godobka gashid idla u haaya yaa ayay noqotay sheekadaadi ee ku soo gabagabowday markaan maskaxdaada foonta noqoto isku dhex dhacday yaa kulaha yaa nikinayso ka siinayso maxaa dad caysa adaaba kuwaagii dayacay adaa xaasaskaagii dayacay adaa inkiray adaa ilmihii uga soo cararay qaarkood yaa boqol ciyaala leedahay meel aa ku sheegtidna malaha والله وكايا يا ninkaas iska socdaade waxaan ku iri yaa hala ciyaal ilaahay u noolihi idla kama warqabo mana biisho labadan hadda ala u daayay uu haysta oo meelaha la ordaya mooyaane lix cunuga waxay u jirtaa arsawo u fadhiyo imka harta way waaweynadeen ciyaalkaas kan ugu yaraaba waxa ahaa malayna 8 jir waayo ma garat iyo 10 jir waxay yihiin ma aqaaniyo ma garat marka walaale dadka aad caayaysid iyo dumarka aad maaragta caay aflagaadada aad dhaq ku siinaysid joojiyaan ku dhahay ceeb waa waxyaabaha qaarkood aad ku hadlaysid walaalayaal hadda waa ceeb Soomaali rag intuu meel soo istaag heblaago gordeeda dhidid way maroojis ana arkay yaa iyo nigiskeeda iyo afaaraas inuu ka hadlo ma ahanbo ceeb waa waxyaabaha qaarkood wallahi bilaa qosolka kaaga darsi lagu baambir camal lagu shactiraysanaya afdaal lacag ku qaadano shactiraad dadka maaragta ajnabi waxay sameeyaan meel ay u kireystaan si dadka ugu qosliyaan lacag lagu siiyaa lacag la'aan ma qoslaan hadii laakiin isku qoslaysaa bilaa iskeersa ma garat markuu laalay qaaliga aan jeclaayo share gareena naadka galiye subscribe qac ku siiyaan ku dhahay ninkaas ciil iga qabtay wallahi ciil baa iga qabtay waayo dumar ayuu caynaya dumarkiisi kale soo dayacay dumar oo caynaya wuxuu ku leeyahay meelaan istaagay meelaan harsada midna male yaa share gareeya bacda ka gidiyaan ku dhahay u geeya sira badan aan ka hayaa sira badan islaantiisa aan la soo hadalsiina arag leeyahay halkaan soo fariisto doonaayo ayada ka sheekay doonto dan beenka sheegay dii kale wallahi billaah tala reeyaaraadu ninkaas Zahrana hadda holad ay jirtaa saana aan jeclahay ma baxayaa ay tiri markii igu hordambeysay ilaa hadda meel ay ku dhintay meel jirta ani ma garanayo balse laakiin ninkan yaa maray ay fadhiday maxaa ay bin cali oo mar aan meesha maraan ka naxaan dhanaa maxaa tiri cunugii ugu inkir ogeed naciimo aabe isi guursada dartiis leenka iga baaqday nafsiga ku haysto walaalo nafsiga iska daa dumar cayga iyo dumarka aan nafsiga galaysa iska joojiyaan ku dhah share garay walaalay qaaliga aan jecelahay naanaada ka gadii ma fahanteen subscribe ku saaro like garay oo bac ka siiya yaa inta xun darbiyada ha jiiraan ha jiifaan haday doonaan bisha u jecel bakool yaa muxuu iga qaado iga taraaya naanaada ka gadiyo